رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat اlanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa noogu soo dembeysay safarkiisii shaam uu aaday iyo buxayro raahibkii la dhihi jiray oo abaa taalib markuu doonay inuu safar ka aado tijaaro darteed. nebiga da'diisa 12 sanay ahayd, 2 bil iyo 10 birina waa u dheereed. nebiga arrintaa wuu la weynaatay oo way la adkaatay inuu adeerkii ka tago, kadib laakiin wuu waday. markii ay gaareen baa la yidhi shaam, waxaa u soo baxay nin nasaaro ah oo culimmadii nasaara ka mid ah. gacanta ayuu ka qabtay, markaasuu yidhi ninkani waa caalamka oo dhan sayidkooda. weli markaa nebigu waa canug yar oo 12 jir ah. rasuul ilaahay waaye buu yidhi, ilaahay baa u soo diri doonaa caalamka. sayd ku ogaatay markii la yidhina wuxuu dhahay, mar kastoo aad buur kortaan ama caqaba, dhagax iyo geed kastoo meesha ku yaalla way u sujuudayeen. dhagax iyo geedna uma sujuudaan ilaa nebi maahane. waxaan kaloo ku aqoonsaday calaamadda nebinimada. kadibna wuu karaameeyey, uma akramahum bidiyaafati, martiqaadkoodii ayuu wanaajiyey. sa'ala abaa taalibna wuxuu ka codsaday an yaruddahu, inuu u celiyo oo meeshii uu ka keenay uu u celiyo maka. walaa yaqdima bihi ila shaam, shaamna uusan ula gelin, khawfan min alyahuudi, cabsi uu uga cabsanaya yuhuudda darteed, iyo warumaani, dowladdii romaan. faraddahu abuu taalibna ilaa maka, abii taalibna maka ayuu markaa u celiyey. xarbulfujaar, xarbi dagaal aan wanaagsanayn oo dhacay, xarbulfujaar baa la yidhaahdaa. rasuulka intaa nebi laga dhigin ayuu dagaalkan dhacay. waxiina wakhti kaana uu ahaa cumruhu, da'diisa sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee 20 sanatan, 20 sano asagoo jir ah. waqacad waxaa ka dhacay fii suuqi cukaab, ama suuqa cukaab waxaa ka dhacay xarbun dagaal. xarbi ayaa markaa ka dhacay bayna qabaa'ila qurayshin, qoraysh qabiilooyinkeeda baynkooda, iyo wa kinaanata oo min jihatin jiha ah. macnaha quraysh iyo reer kinaana oo isku saf ah, iyo wa bayna qabaa'ili, qabiilooyinka la yidhaahda qays caylaan oo min jihatin ukhraa, jiha kale ah. haddana laba baa loo kala saftay oo quraysh iyo kinaana meel bay ka soo jeedeen. qays caylaan qabiil lagu magacaabana jiho kale ayay ka soo jeedeen. ishtadda waxaa adkaaday fiiha dhexdooda alba'su, dhibkii baa darnaaday. dagaal adag oo xoog leh ayaa dhex maray. wa qutila waxaa la dilay cadadun tiro oo min alfariiqayni, labada qolo ahba, labada dhinacba koox ayaa laga dilay. uma istalaxuu, kadibna waxay ku heshiiyeen calaa an yuxsuu, in lasoo tiriyo lasoo koobo qadla alfariiqayni, labada qole intii laga dilay, intay iska dileen in lasoo tiro koobo ayaa markaa lagu heshiiyey. faman wajada, qofkii ogaada ama hela, qatlaahu, dilkiisa, dadka laga dilay, akthara inay ka badan yihiin kuwa kale, akhada inuu qaato diyata zaa'idi, intii zaa'id ah diyadooda. wixii laga dilaa laysku tirinayaa. macnaha haddii qoladan 10 laga dilay, qoladaanna 5 iyo 10, 10 iyo 10 way isku baxayaan. shanta dheeraadkaa diyadooday qaadanayaan macnaha.
wa wadacuu way joojiyeen marka alxarba dagaalkiina markaa way joojiyeen, wahadamuu waxay dumiyeen maa waqaca wixii ka dhex dhacay baynahum dhexdooda oo min alcadaawati cadaawanimo ah. wixii cadaawanimo ah oo ay isdhexdooda ka dhacayna way joojiyeenoo markaa way dumiyeen, iyo washari wixii shar ahaa. wax kama jiraan iyo kama sooqaad baa laga dhigay. waqad xadara waa uu ka qayb galay haadihi alxarba dagaalka rasuuluullaahi, rasuulkii allah ka qayb galay sala allahu calayhi wasalam. wa kaana wuxuuna ahaa yambulu mid u dhiidhiiba calaa acmaamihi adeeradiis ayuu u dhiidhiibahayey. ee yujaahizu wuxuu u diyaarinayey lahum ayaga annablu gamuunka liramyi si loo tuuro. markay mid tuuraanba ka kale u soo dhiiba uu usii diyaarinayay nebiga, bacdamaa canug yariis uu ahaa oo dagaalkaana uu ka qayb galay. adeeradiis ayuu gamuunnada u dhiidhiibayey. wa sumiyad waxaa loogu magac daray haadihi alxarbu dagaalka bixarbi alfujaar. xarbulfujaar baa loo bixiyey li'annahum maxaa yeelay intahakuu waxay ku xadgudbeen fiiha dagaalka dhexdiisa xurmata xarami maka, sharaftii xurmadii xaramkii maka ay markaa ku xadgudbeen, iyo wa shahri alxaraami bilihii xurmada lahaa. waalfujaaru fujaarku 4 buu ahaa. 4 sano ayaa macnaha dagaalka ama xarbada fujaar 4 mar buu dhacay. kullu fi sanatin mid kasta sano gudaheed buu dhacay. wa haadihi midkaa nebiga uu ka qayb galayna aakhiruhaa kii ugu dembeeye buu ahaa. kii ugu dembeeyey 4 mar baa dagaalkaa dhacay, laakiin 4taa mar ka ugu dembeeyey kan buu ahaa rasuulku ka qayb galay. waintahat alhalaathatu aluulaa 3dii horese wuxuu uu dhammaaday oo wuxuu ku soo gebagaboonayay bacda khisaamin dood iyo washtijaarin muran dafiifin oo fudud. macnaha 3da kale dagaal ma dhicin, laakiin dood afka iyo waxoogaa muran dhexdooda ah taasuu ku dhammaanayay. walam yaqac alqitaal dagaalsa ma dhicin ilaa fii raabici faqad, kii 4aad maahane. midka ugu dembeeyey 4aad keliya ayaa waxaa ka dhacay dagaal. laakiin xarbiga iyo dagaalka fujaar 4 mar buu dhacay, 3na dood buu ku dhammaanayay iyo muran. halkaa maray ugu dembeeyey 4aadna waxbaa layska dilay. xilfu alfuduul, xilfi waa isgaashaanbuursi oo fuduul ah, macnaha wanaagsan. wa fii shahri dilqacda, bishii dilqacda, calaa itri haadihi alxarbi dagaalka asagaa gadaashiisa tamma waxaa suuro galay oo taam noqday xilfu alfuduuli, xilfi iyo heshiis iyo isgaashaanbuuraysi ayaa ka dhacay bayna 5 butuunin 5 jilib ama 5 jufo oo min qabiilati quraysh qabiiladooda ka mid ah. inay taxalluf samaystaan gaashaanbuur, ay isku duubnaadaan 5 qabiil oo qabiilooyinka jilibyada quraysh ka mid ah ayaa go'aankaa gaaray. wahum waxay ahaayeen 5taa waa banuu haashim wa banuulmuطallib wa banuu asad wa banuu zuhr wa banuu taym. intaasay markaa ahaayeen macnaha oo min qabiilooyinka 5ta ah. banuu haashim oo 1 ah, banuulmuطallib wa banuu asad wa banuu zuhra iyo wa banuu taym. wa sababuhu sababta keentay inay isgaashaanbuuraystaan 5taa qabiiloodna wuxuu ahaa anna rajulan nin oo min zubaydin reer zubayd u dhashay ayaa jaa'a wuxuu la yimid bisilcatin badeeco ilaa makata maka. nin reer zubayd ah ayaa badeeca suu ugu iibiyo maka keenay. faishtaraahaa waxaa ka iibsaday minhu xaggiisa alcaas bin waa'il ayaa ka gatay marka. caas ibnu waa'il oo reer maka ah ayaa ka iibsaday ninkii zubaydiga ahaa assahmiy ahaa. waxabase wuxuu ka xabisay uu u diiday canhu xaggiisa xaqahu xaqiisa. wixii badeecana wuu ka qaatay, inuu lacag dhiibana waa diiday.
inuu lacag bixiyana markaa wuu diiday oo xaqiisuu ka xabisay. markay arrintu meeshaa maraysay fastacdaa calayhi, marka kaalmo dalab ayuu sameeyey. marka wuu kaalmo dalbaday ilaa makkata maka xaggeeda, macnaha fastacdaa wuxuu uga kaalmo dalbaday calayhi ninkii xoolaha ka qaatay caasa dushiisa bibani cabdidaar, reer bani cabdidaar, wa bani makhsuum oo 2 ah, wa bani jumx iyo wa bani sahmin wa bani cadiy, falam yaktarithuu lahu, danna kama gelin. ninkii reer subaydi ahaa markii arrintiisii saa noqotay oo xoolihiisii loo diiday, wuxuu u gargaar dalbaday, uu cararay reer bani cabdidaar inay uga qaadaan, dan kama gelin. reer makhsuum buu u tegey, dan kama gelin. reer jumx, reer bani sahm, reer bani cadiy, falam yaktarithuu lahu, danna kama geline, waba uma aabbayeelin qayladiisii. lahu asaga facalaa wuxuu koray ninkii reer subaydi ahaa jabala abi qubays, buur lagu magacaabo buurtii abi qubays ayuu koray. wadakara wuxuu xusay, uu sheegtay dulaamatahu, dulmigiisii fii abyaatin, baydad gabay ah ayuu markaa ku dulmi sheegtay. markii wax loo qaban waaya intuu buurta korkeedii fuulay ayuu wuxuu tiriyey dhowr beej oo gabay ah oo dulmigiisa ku sheeganayo. wanaadaa waxaa naadiyey oo dhawaaqay man yuciinuhu, wax uga kaalmeeya calaa xaqii, xaqiisuu ku dhawaaqay. wanaadaa waa naadiyey oo waa qayliyey oo wuu dhawaaqay. man ayuu u qayliyey yuciinuhu, ugu kaalmeeya calaa xaqii, xaqiisa. famashaa waxaa u soo socday fii daalika arrintaa oo u dhaqaaqay azubayr ibni cabdiilmuطalib, xata ijtamaca ilaa uu soo kulmiyey aladiina kubii madaa uu xusay dikrahum xuskooda oo fii daari cabdillaahi bni judcaan, gurigii cabdullaahi bni judcaan ayuu dadkii isugu keenay. waa ra'iisu bani taym, reer bani taym ra'iiskoodii buu markaa ahaa. wataxaalafuu waxay ku heshiiyeen ama ay ku ballameen, wataxaalafuu waxay ku heshiiyeen oo watacaaqaduu ay ku ballameen calaa an laa yajiduu inaan la helin bimakkata maka madluuman qof la dulmiyey oo min ahlihaa ha ahaado ehelkeeda, aw min hayrihim ama qof bannaanka ka yimidba ha ahaadee, qof kastoo maka lagu dulmiyo ilaa qaamuu inay u istaagaan macahu micigiisa xataa turad ilaa la celiyo calayhi korkiisa madlamatahu wixii markaa laga dulmiyey. heshiiskaasaa markaa la kala dhigtay. uma ka bacdi qaamuu way u istaageen dhammaantoodii ila alcaas ibni waa'il assahmi bay u tageen. faintasicuu minhu waxay uga soo qaadeen xaqa zubaydiy, ninkii reer zubayda xaqiisa, wadafacuuhu ilayhi wayna markaa u dhiibeen. waqad xadara wuu xaadiro wuu ka qayb galay rasuulkii allana haada alxilf, heshiiskaa asaga ah, maca acmaamihi adeeradiis asagoo la socda. wa qaala wuxuu yidhi bacda an sharafahu allahu biاlrisaala, markii arrintaa dhacays waa intuusan nebigu nebi noqonin, islaamkan aan la soo dirin. kadib markii risaalada nebiga lagu karaameeyuu nebi noqday, laqad shahidtu waan xaadiray fii daari cabdillaahi bni judcaan xilfan ayaan kula qaabilay oo aan ka xaadiray. maa axabbu ma jecli anna lii bihi inay ii beddesho xumra nacami, geela midkiisa gudguduudan. walow addacaa bii fi lislaami la ajabtu. marka rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xilfiga inuu markaa ka qayb galay, guriga ee cabdullaahi bni judcaanna uu joogay, laakiin geela kiisa gudguduudan haddii la siin lahaa wuxuu ka jeclaan lahaa heshiiska. waa heshiis fiican buu markaa ahaa. xayaatulcamali, xayaatadii noloshii camalka macluumun, waxaa macluum ahoo la yaqaanaa ana alnabiya, nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa macluum ah oo la wada og yahay ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam wulida in la dhalay yatiiman asagoo agoon ah. wanasha'a uuna ku barbaaray fii kafaalati jaddihi, awowgii kafaaladiisa,
uma kadibna cam adeerkii walam yarid uusanna ka dhaxlin nebiga can abiihi aabbihii shay-an wax oo yuqhniihi ku filan, wax kaafiya inuusan aabbihii ka dhaxlin baa macluum ah. falammaa balaqa markii uu gaaray sinnan da' oo yumkinu suurageli kartuu qaban kara nebiga alcamalu shaqo fiihi da'daa dhexdeeda oo fiihi caadatan sida caadada ay tahay. waxaa jirta da' qofka uu ku shaqo geli karo. markii da'dii mumkin ka ahayd ee suuragalkeed inuu ku shaqeeyo uu gaaray, raca alghanama, ari buu raaci jiray. nebiga ari buu raacay maca ikhwatihi, walaalihii micigooda oo min alradaacati nuugmada ay ku walaaloobeen oo fii bani sacd. walammaa markii rajaca uu u soo laabtay ilaa makkata makana, racaahaa wuxuu u raaci jiray arigii liahliha reer maka ehelkeeda calaa qaraatiitin, qaraatiid ayay siin jireen, qaraatiid ayuu ugu raaci jiray. waalqiraadna waa jus-un yasiir, waa wax yaroo min addiinaari, diinaar markaa ah. sanuud yar bay siin jireen, nisfa alcushur oo kale, aw amase thuluth thumun, thumun thuluskiisa oo minhu cushrigaa ka mid ah. qiimatuhu haddii la qiimeeyo fii haada azamaani, zamankan ee kan ahna waa 10 riyaalaad taqriiban, 10 riyaal taqriiban, intaasoo kala waaye. waraca wuu raacay alghanama, arigii waraca alghanam, ariga raacitaankiisa min sunani alambiyaa, waa nebiyada sunantooda. nebi kasta oo nebiyaalka ka mid ahaa ari buu markaa soo raacay. marka ariga raacitaankiisa waa min sunani alambiyaa'i, nebiyada jidadkooda waayey sunankooda fii awaa'ili xayaatihim, noloshooda bilowgeedaa lagu bilaabaa. faqad qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka maratan mar wuxuu yidhi, bacda an akramahu allaahu, markuu ilaahay ku karaameeyey kadib, binnubuwati nebinimo, maa min nebiyin, nebi ma jiro ama ma jirin, ilaa waracaahaa, ariguu soo raacay. nebi ma jirin ilaa qowsaar buu ahaa. walammaa markii shabba uu koray ama uu barbaaray annebiy, nebiga sala allahu calayhi wasalam, oo wabalaqa uu gaaray alfutwata adkayn iyo dhallinyaranimo, faka'annahu kaana yatajir, wuxuu ahaa mid tijaaraysta. faqad warada waxaa la wariyey annahu kaana inuu ahaa rasuulku yatajiru mid ganacsi sameeya, lana ganacsi sameeya maca saa'ib ibni abi saa'ib ninka lagu magacaabo. fa kaana ninkaa wuxuu ahaa khayru shariik, wax lala shariiga midka u khayr badan, lahu asaga. laa yujaarii walaa yumaari, doodna ma dhex mari jirin, wax eeskhiyaano ahna markaa ma aysan jirin. oo wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo saa'ib ibni abi saa'ib shariik aad iyo aad u fiican. wacarafa wuu aqoonsaday sala allahu calayhi wasalam, waa rasuulkee fii mucaamalaatihi, mucaamalaadkiisa, bigaayati alamaana, ammaano midda ugu sarraysa, waasidqi iyo run, waalcafaafi dhowrsanaan. wa kaana haada, waayo kaa wuxuu ahaa hadyuhu, dhaqankiisa sala allahu calayh wasalam. taasi rasuulku dhaqan bayba u ahayd, oo shirkada keliya ma ahee, fii jamiici majaalaati alxayaati, majaalaadka iyo boosaska nolosha oo dhan, xataa laqaba, ilaa loogu naanaysay nebiga bilamiini, amiin ilaa loo bixiyey. safaruhu, safarkiisii nebiga ila shaam, shaam uu u safray, iyo wa tijaaratuhu, tijaaradiisii fii maali khadiija, khadiija maalkeedii uu u ganacsi geeyey. wa kaanad khadiija waxay ahayd khadiijadii binti khuwaylid gabadhiisa ahayd radia allaahu canha, min afdali nisaa'i quraysh, dumarkii quraysh midda ugu fadliga badan ama kuwa ugu fiicfiican ayay markaa ku jirtay. min afdali nisaa'i quraysh sharafan, xagga sharafta, iyo wamaalan, xagga xoolaha. wa kaanad waxay ahayd tucti, mid u dhiibta maalahaa, maalkeeday bixin jirtay, litijaara, tijaaro darteed, ama nimanka ganacsatada ahee tujaarta ah ayay u dhiibi jirtay. yatajiruuna fiihi, way u ganacsi gayn jireen, calaa ujratin, ujro ayay ugu ganacsi gayn jireen.
waxoogaa qidmaa intay ka qaataan iyo xoolaheeda u soo bayc mushtari jireen. falammaa markii samicad ay maqashay khadiijo can innabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam caradat calayhi waxay u bandhigtay dushiisa maalahaa xoolaheeda liyukhrija fiihi inuu ula baxuu u geeyo ila shaam uu la aado taajirnimo darteed, macnaha ganacsi in loo geeyo. wa tucqiihi inay siinaysay u sheegtay afdala maa acdathu waxay siin jirtay wax ka badan hayruhu asaga kayrkiisa. raggii kale waxay siin jirtay wax ka badan inay siin doontana way u ballanqaaday. wa kharaja rasuulullaahi wuu baxay sal allahu calayh wasalam maca ghulaamiha addoonkeeda iyo asagaa israacay oo maysar la odhan jiray ila shaam xaggiisay aadeen. fabaaca wuu iibiyey, wabtaaca wuu soo iibiyey, macnaha waxna wuu gaday waxna wuu u soo gaday. wa rabixa ribaxan ribix buu ribxay uu faa'iiday cadiiman oo weyn. wa xasala wuxuu helay fii maalihaa maalkeeda waxaa soo xasiliyey min albarakati barako maa shay lam yaxsil min qablun horay uusan ku soo xasilin. baraka iyo badnaan horay aan loo arkin yaa maalkeedii lagu arkay. uma ka bacdi rajaca wuu soo laabtay nebiga ilaa makata maka wa adda alamaana ammaanadiina wuu gutay. sidii wax loogu dhiibay iyo suu wax u soo iibiyey iyo kulli asoon waxna ka qiyaanin ayuu gabadhii u keenay. zawaajuhu guurkiisii nebiga bikhadiijata uu guursaday. wara'at way aragtay khadiija min alamaanati xagga ammaanada iyo walbarakati barakada maa shay yabharu alquluub qalbiga dhaqaajiyo farxad geliya ayay ku aragtay. waqasa wuu uga sheekeeyey calayha khadiija korkeeda maysarana maa ra'aa wixii uu ku soo arkay fi nebiy nebiga sala allahu calayh wasalam. intii jidka ay ku sii socdeen wixii uu ku soo arkayna waa uga sheekeeyey oo min karami shamaa'ili dabeecadaha fiicfiican ah wa cuduubati alkhilaali macnaha dhaqanka fiican ee macaan ah. yuqaalu wa bacdu waxaa kaloo la yidhaahdaa wa bacdu alkhawaariqi waxyaabaha khawaariqda ah, waxyaaba maskaxda inay gasho ay aad ugu adag tahay. khawaariqulcaadaad baa la yidhaahdaa. waxyaabaha caadada iyo waxa la yaqaana dilaaciya ayuu ku soo arkay. midla tadliili almalakayni waxaa ka mid ahaa 2 malag ayaa nebiga harinaysay sal allahu calayh wasalam lahu asaga fi lxari kulaylkay ka harinaayeen. fa shacarad waxay dareentay khadiija waxay dareentay baa la yidhi biniilin inay gaartay ama gaadhid buqyatahaa ee danteedii fiihi dhexdiisa, macnaha inay meeshaan ujeeddadii iyo dantii ay lahayd ay ka dhexeshay. fa arsalad adeeg bay u dirtay ilayhi rasuulka xaggiisoo waxay u dirtay ixdaa sadiiqaatiha saaxiibadeed mid ka mid ah ayay u dirtay. tabadi'u ragbataha fi zawaaji fiihi ayadoo u bilaabaysa u caddaynaysa rasuulka raqbada iyo rajada, ayadoo muujinaysa raqbada iyo rajada ay markaa guurkiisa ka leedahay. taasaa nebiga loo bandhigay. waradiya wuu ku raali noqdo wuu oggolaaday annebiyu nebigana sala allahu calayh wasalam bidaalika arrinta. wa kallama wuxuu la hadlay acmaamuhu adeeradii fakhatabuuhaa way u dooneen lahu asaga khadiijay u dooneen ilaa cammihaa adeerkeed baa laga doonay camar ibni asad ahaa. fazawajahaa waxaa mehriyey oo u guuriyey cammihaa adeerkeed binnebiyi sala allahu calayh wasalam nebiga ayuu u guuriyey fii maxdari min bani haashimin meel golo ah oo la wada fadhiyo ay wada joogaan reer bani haashim iyo wa ru'asaa'a qoraysh madaxdooda. calaa sadaaqin meher baa lagu mehriyey qadaruhu uu la eg yahay qadarkiisa 20 bikran 20 qurbac ayaa lagu mehriyey. waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa 6 bakaraatin 6 qurbac bay ahaayeen ama geel ayaa markaa meher ahaan looga dhigay. wa kaana alladii kii wuxuu ahaa alqaa tuuray ee riday khidbata nikaaxi ama khudbata nikaaxi nikaaxa khudbadiisa waxaa akhriyey huwa kaa cammuhu abu aalib buu ahaa adeerkii abu aalib ayaa akhriyey. faxamida allaaha
ilaahay ayuu mahdiyey wa ahnaa calayhi wuu ammaanay uma kadibna dakara wuxuu xusay abi taalib sharafa nasabi nasabka wanaaggiisii wa fadli الnabiyi nebiga fadligiisa sala اllahu calayhi wasalam uma kabacdi dakara wuxuu sheegay kelimata alcaqdi kelimadii zawaajka ee guurkii meherka wa bayana asadaaq meherkiina wuu caddeeyey inuu intaa ahaa tamma waxaa dhammaystirmay oo taam noqday haada azawaaj guurkaa asaga ah bacda rujuucihi ka soo noqodkiisii sala allahu calayh wasalam uu ka soo noqday min ashaam shaam uu ka soo laabtay wuxuu dhacay guurkiisa bishahrayn 2 bilood iyo wa ayaamin dhowr maalmood kadib wa kaana cumruhu da'diisu idaaka wakhtigaa 25 sana 25 jir buu ahaa rasuulka amaa khadiijase falashhar sida mashhuurka ah ee caanka ah anna sannaha da'deedu kaanat 40 sana 40 jir bay markaa ahayd waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa 28 sana 28 jir bay ahayd waqiila hayra daalika wax intaa ka beddelanna waa la sheegaa laakiin sida caanka ah ee mashhuurka inay 40 jir ahayd ayaa markaa la tilmaamaa wa kaanat waxay ahayd khadiija awalan qofkii ugu horreeyey mutasawij ahaa awalan mutasawijad ninkii ugu horreeyey ay guursatay bicatiiq bin caa'id almakhzuumiy nebiga waxaa uga horreeyey nin la yidhaahdo catiiq bin caa'id almakhzuumiy famaata canha wuu ka dhintay fatasawajaha abu haala attaymi ninkaasaa haddana guursaday famaata canhaa aydan haddana wuu ka dhintay bacda an taraka lahu markuu uga tegay minhaa xaggeeda waladan hal cunug ayuu markaa uga tegay uma kadib xarasa waxaa ku soo dadaalay calaa zawaajiha guurkeeda kibaara ru'asaa'i quraysh madaxdooda kuwa ugu waaweyn baa soo doontay fa abad way diiday xataa raqibad ilaa ay ka dooratay fii rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam watasawajat bihi fasacadat bihi way ku liibaantay sacaadatan liibaan yaqbidu ay majeersadaan ama ay jamdaan calayha korkeeda alwaluuna waalaakharuun dadkii hore iyo dadkii dambe waxay aad iyo aad ula dhacaan bay markaa ka heshay wahiya khadiijo awala aswaajihi xaasiskiisa tii u horraysay ahayd sala allahu calayh wasalam lam yatasawaj ma guursan calayha dusheeda hayrahaa gabar aan ayada ahayn xataa maatat ilaa ay dhimatay wa kullu awlaadihi ilmihiisa dhammaanna sala allahu calayh wasalam ayadaa u dhashay minhaa xaggeeday ka ahaadeen ilaa ibraahiim maahane wiilka ibraahiim la yidhaahda fa innahu kaasi min maariyati alqibtiya ayaa markaa dhashay maariyadii reer qibti ahayd awlaadu nebiga ilmihiisa sala allahu calayh wasalam oo min khadiija ay u dhashay hum alqaasim waa qaasim waa kii ugu weynaa oo nebiga loogu magac daray abalqaasim baa la dhihi jiray nebiga uma kabacdi zaynab baa dhalatay uma ruqaya uma ummu kalhuum uma faadima uma cabdullaahi wa qiila hayra daalika kaa waxaan ahaynna waa la sheegaa fii cadadihim tiradooda iyo wa tartiibihim say isugu xigxigeen saan hadda isugu xixijinay si aan ahaynna waa lagu sheegaa waqad maata wuu dhintay albanuun way dhinteen wiilashiisa kulluhum dhammaantood sugaaran ayagoo yar yar ah ayay dhinteen ama albanaatu gabdhihiise faqad adragna way soo haleeleen oo way soo gaareen kulluhunna dhammaantood zamanu nubuwa zamankii nebinimada ayay soo gaareen nasiib wanaag fa aslamna way islaameen dhammaantood wahaajarna way hijroodeen gabdhihii nebiga uu dhalay dhammaan uma tawafaahunna almowt geeridii ayaa oofsatoo way dhinteen qabla alnebiy nebiga hortiisa sala allahu calayh wasalam horta wiilasha dhammaan umushay raaceen oo way ka wada dhinteen waaye intaan nebiga nebi laga dhigin laakiin gabdhaha way soo gaareen amase macnaha xataa haddii nebi laga dhiga sida ibraahiim oo kale yaraan bay ku dhinteen gabdhihii laakiin faaduma iyo zaynab iyo ruqaya iyo ummu kalhuum intaba nolol bay ku soo gaareen nebiga asoo nebi noqday ayay soo gaareen dhammaantood way islaameen oo nebigay rumeeyeen waa aabbahood dhammaantood way haajireen
dhammaan way dhinteen oo nebigay ka hormareen sala allahu calayh wasalam ilaa faadima maahane radia allaahu canha fa innahaa ayadoo caashad way sii noolayd bacdahu rasuulka geeridiisa kadib 6 ashhurin 6 bilood 6 bilood ayay noolayd faadimo oo rasuulku 6 bilood bay ka dambaysay binaa'u lbeyti iyo wa qisatu taxkiimi ayaanu geli doonnaa haddii ilaah ihahdo subxaana wa tacaala kacbada dhisitaankeeda iyo qisadii cajiibka badnayd ee nebiga uu kala xukmiyey kana dhexdhexaadiyey dagaal weyn oo quraysh ka dhici lahaa ayuu sabab u noqday xukunkiisa in lagu joojiyo meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.